waa BBC Afrikada bari saacadu waa 9kii habeenimo waxaad naga dhageysan kartaan mowjadaha gaagaaban FM-yada iyo boggeena internetka ee bbcsomali.com. habeen wanaagsan dhageystayaal waa anigoo ah Kawthar Maxamed Cabdullaahi qodobada aan caawa oo habeen isniin ah 9ka bisha December ee sanadka 2019 aan idin hayo waxa kamid ah madaxweynaha Ruushka iyo dhigiisa Ukraine oo markii ugu horeysay kulmaya hadaba maxay diiradu saarayaan waxa kamid ah xabad joojin waata oo ah qodobka ugu horeeya waxa iyaduna kamid ah in la isweydaarsado xabiista labada dhinac ay kala haystaan waxa iyaduna kamid ah in iyadana la meel mariyo qabashada doorashooyinka gobolada iyo sidoo kale in hubka dhigis lagu sameeyo wiil uu dhalay madaxweynaha hore oo maxkamad la soo taagay kaas oo loo haysto eedeymo musuqmaasuq wadankay ka soo jeedaa gabadha ku guuleysatay tartanka quruxda adduunka waxaad kaga bogan doontaan barnaamijkan oo soo saaray Ciise Xaaji Cabduul caawa iyo caalamka markana madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa markii ugu horeysay lagu wadaa inuu la kulmo dhigiisa Ruushka ee Vladimir Putin si loo soo afjaro khilaafka bariga Ukraine iyo Ruushka kulankan foolka ah ayaa waxaa sidoo kale qayb ka ah Faransiiska iyo Jarmalka in ka badan 13,000 oo qof ayaa dhimatay sanadkii 2014 kadib markii dagaal uu ka dhacay bariga Ukraine oo uu Ruushka taageero u fidiyay haddaba si aan u falanqeyno kulanka madaxweynaha Ukraine iyo dhigiisa Ruushka ayaa waxaanu khadka telefoonka Ukraine kula xiriiray Maxamuud Carab oo ah wariye madax banaan oo ku sugan dalka Ukraine walaalo waxyaabo badan baa diirada lagu saari doonaa waxa kamid ah xabad joojin waata oo ah qodobka ugu horeeya maadaama gobolada bariga Ukraine uu weli qalalaasihii dagaal uu ka socdo waxa iyaduna kamid ah in la isweydaarsado xabiista labada dhinac ay kala haystaan waxa iyaduna kamid ah in iyadana la meel mariyo qabashada doorashooyinka gobolada ama gobolada Donbas loo yaqaan gooni-goobsadku ay xukumaan iyo sidoo kale in hubka dhigis lagu sameeyo islamarkaana laga joojiyo daadgureynta lagu soo daadgureynayo ama Ruushku uu ku xoogeynayo kooxdaasi gooni-goobsatooyinka ah ee ka aaloosan ama ka dhisan gobolada Donbaska waxa iyaduna muhiim ah in la fududeeyo xiriirada bini'aadamnimo iyo kuwa dhaqaale ee u dhaxeeya labada wadan oo moodaysa muddooyinkii ugu dambeeyay in ay ahaayeen kuwo aan fiican u socon waa tahay sidaan ognahay khilaaf ayaa ka dhaxeeya Ruushka iyo bariga Ukraine marka shirkan labada hogaamiyana waa mid aad loo wada sugayay kulankooda ma laga filayaa inay gaaraan heshiis marka lagu dhameynayo dagaalkaasi dabcan siyaasaddu kulley waxay leedahay wajiyo badan laakiin qaabka loo turjumo ayuunbay hadba ku xidhan tahay labada hogaamiye haddii aynu soo qaadano labada hogaamiye madaxweyne Putin waa hogaamiye rugcadaaya oo siyaasadiisu gaarmartay oo siyaasad bundheer leh kolka waxa uu inta badan diirada ku saaraya ama dadka siyaasiyiinta qaar ay u arkaan in ay tahay ama ay uu madaxweyne Putin uu ku guuleysan doono hawlihiisa siyaasadeed halka Zelenskyna uu yahay madaxweyne firfircoon oo runtii siyaasadda ka madax banaana waqtiyadii hore oo majaajilaystu ahaa howlaha masraxiyadda matali jiray haddase waxa uu matalayaa masraxiyadda siyaasadda sida la ajligeed waxaa loo arkaa inuu yahay siyaasi da'yar oo aan u bislaanin inuu howlahaasi qabto oo arrimahaasi waaweyn kolka wadamada Yurub ku dhowdu waxaad moodaa inay ku kala yar aragwan yihiin madaxweynaha Faransiiska oo kale Macron waxa uu arkaa in Ruushku yahay madaxweyne dhinaca nabadda ka shaqeeya balse cadow aan u arkahayn halka wadamada qaarna ay u arkaan inuu yahay cadow kolka aragtida dhinaca falafooyinka labada wadan ayaa iyaguna u dheeda ay tahay siyaasad kale oo iyaduna meesha ku jirta waxa iyaduna aad muhiim u ah in miiska heshiiskii 15 qodob ama 16 qodob lagu falanqeynayo aan weli waxba ka hirgelin muddada dheer waa tahay labada madaxweyne ee kulmaya midba wuxuu wataa qorshihiisa marka maxay damacsan yihiin walaalo waxay damacsan yihiin dabcan waxaan ka warrami karaa si bundheerna u sharaxi karaa madaxweyne Zelensky waa madaxweyne yar oo da'yar oo dhiiran oo runtii firfircoon waxa uu doonayaa in uu saameyn ku yeesho
siyaasadeed madaxweyne Putin. dabcan waa ay jiri kartaa in uu hawlaha qaar uu meel mariyo, balse iyagu waxay leeyihiin weli ismaanaan dhiibin, waxaanu kusoo dhacsananaa gobolladeedii, waxaanu maanaan ilaawin gobolladeedii. taana waxaan ku heli karnaa buu aaminsan yahay Zelensky in xabadda la joojiyo, nabad la qaato, isla markaana laga wada xaajoodo arrimaha taagan ee Crimea iyo weliba gobollada bariga. laakiin Putin isagu qudhiisu waxa uu u arkaa in arrin kale oo fursad u ah oo uu ku samayn karo federaal ruushka ah oo uu ku soo jiidan karo Ukraine, isla markaana xiriir dhaqan dhaqaale uu la yeelan karo oo uu samayn karaba si uu uga hoos saari lahaa taageerada iyo dagaalka kaga socda dhinaca NATO. kolka taasay aragtiyadoodu tahay. waa hagaagkaasi waxa uu ahaa Maxamuud Carab oo ah wariye madax bannaan oo ku sugan dalka Ukraine, wuxuuna nala falanqeynayay kulanka ay markii ugu horeysay yeelanayaan madaxweynaha Ukraine iyo dhigiisa ee Ruushka. BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba.